daawada haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan saar subscribe furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada fiidiyoga aan soo gelino fadlan u share garee asxaabtaada inta kale like saar commentigana noogu reeb wixii fikirkaaga ah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan ka sheekay doonaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan madaxweyne Rajab Ahmed Tayyip Erdogan waxaa mar kale loo doortay xilkaasi uu hayay sanadkii waa caruurnimadiisa kusoo qaatay magaalada Ra'iis halkaasi uu aabihiis kamid ah shaqaalaha ilaa xeebaha 13 jirkiisa ayuu qoyskiisa dib ugu soo laabtay magaalada Istanbul maadaama uu ka soo jeeday qoys sabool ah madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa bilaabay in uu sharaabka liinta iyo sisinta ku iibiyo wadooyinka magaalada Istanbul waxa uuna waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe kusoo qaatay dugsiga Kisambasa Bila Primary School sanadkii 1965 wuxuuna dugsigiisa sare kaga qalin jabiyay dugsiga sare Imam Hatib School sanadkii 1973 Erdogan waxa uu shahaadooyin ka helay koorsooyin waxbarasho oo kale wuxuuna diblooma ka qaatay dugsiga sare sanadkii 1981 ayuu ka qalin jabiyay kulliyadda dhaqaalaha iyo cilmiga maamulka ee jaamacadda Marmara University oo ku taala magaalada Istanbul Tayyip Erdogan oo muddo 15 sano ku soo dhex jiray siyaasadda waxa uu xilka ra'iisul wasaarenimada hayay muddadii u dhaxaysay sanadkii 2003 ilaa sanadkii 2014 waxa uu mar soo noqday duqa magaalada Istanbul sanadkii 1994 ilaa sanadkii 1998 Erdogan waxa uu sanadkii 2001 aasaasay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee AK Party waxa uuna xisbigaasi u horseeday guusha uu xisbigiisa ka gaaray doorashooyinkii dhacay dalkiisa sanadkii 2002 2007 2011 madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan intuusan siyaasadda soo dhexgelin waxa uu ahaa ciyaartoy ka tirsan naadiga kubadda cagta Kisambasa Sport Club oo la aasaasay sanadkii 1921 kana mid ahayd kooxaha heerka koowaad ee Turkiga naadiga uu ka tirsanaa madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan waxay ka dhisan tahay xaafadda Beyoğlu ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Istanbul daawadayaal dhageystayaal wali waxaa la socoteen taariikhda madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Rajab Tayyip Erdogan wuxuu masraxa siyaasadda ka soo muuqday markii isaga iyo Abdullah Gül aasaaseen xisbiga Islaamiga ee AK Party sanadkii 2001 xisbiga AK Party waxa uu ku guuleystay doorashadii dhacday sanadkii 2002 iyadoo Abdullah Gül uu ku guuleystay xilka ra'iisul wasaaraha wuxuu markii dambe noqday madaxweynaha Turkiga waxa uu gogol xirtay inuu Rajab Tayyip Erdogan qabto xilka ra'iisul wasaaraha bishii Maars ee sanadkii 2003 ilaa 2014 Erdogan waxaa isla sanadkaasi loo doortay madaxweynaha Turkiga wuxuu mar labaad halkaasi ku guuleystay doorashadii dhacday 24 Juun ee sanadkii 2018 waxa uu bishii July 15 ka badbaaday 2016 afgambigii dhicisoobay ee saraakiil militari ku doonaysay inay xilka ka tuuraan madaxweyne Erdogan balse shacabka Turkiga ayaa si xooggan u difaacay madaxweyne Erdogan isku dayga afgambiga waxaa lagu dilay in ka badan 3,000 oo qof iyadoo in ka badan 2,100 kalena lagu dhaawacay waxaa afgambigaasi loo soo xiray ku dhawaad 40,000 oo qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 1,000 askari 15 shaqaale caafimaad 2,745 garsooriyaal maxkamadda iyadoo 1,600 shaqaalaha shaqada dowladda ka wada ceerisay dowladda Turkiga waxay shirqoolkaasi ku eedeysay Sheikh Fethullah Gulen oo musaafirin ahaan ugu noolaa dalka Mareykanka balse Gulen waxa uu beeniyay inuu ku lug lahaa afgambigaasi dowladda Turkiga waxay bilowday howlgal ilaa haatan socda oo looga soo horjeedo aragtida shabakada Fethullah Gulen oo si aad ah ugu dhex milantay militariga dalkaasi madaxweyne Erdogan waxaa la aabo 4 caruur ah 2 wiil iyo 2 gabar wuxuuna awow u yahay ilmo ay ubadkiisii dhaleen ayuuna Abiy Ahmed Erdogan waxa uu geeriyooday sanadkii 1980 halka ay hooyadiis Tanzila Erdogan ku geeriyootay da'da 88 sano jir sanadkii 2011 dhageystayaal daawadayaal waxaan la socodsiinaa fiidiyogan saaxiibkayga Axmed Farax iyo anigoo qoslaya fiidiyogan fiidiyo lamid inta ku kulmi doona sidaas nabadgelyo